waddanku ugu liito oo youtube-ka isticmaalo waa Soomaalida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa anigoo ah Cabdiraxmaan Katongo. Waxa maanta marti nagu ah channelkeena wareysiga qaybta toddobaad. Mama Shukri Masala. Mama Shukri Masala kusoo dhawaaw channelkeeni. Channelkan waxaa laga sugaa hadda in asxaabteena soo dhaweey. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamay walaalahayga qaaliga meel kasto adduunka dacaladiisa ka joogtaan. waa walaashin Shukri Maxamed Cali Shukri Masala idin leh kusoo dhawaada. Okay, Mama Shukri Masala, manoo sheegi kartaa sanadka aad timaaday Nairobi meeqa sanad joogtaa? Horaantaadina inta weli Nairobi imaan wadankii joogi jirtay ee asxaabteen la wadaag. Thank you. su'aal fiican waaye. aniga waxaan joogaa wadankan 13 sano. tatiya waxaan ka imid Muqdisho. Okay, haddaan soo qaato su'aasheedii labaad. Mama Shukri Masala, inteed ku dhalatay, inteena ku soo barbaartay, waqtigaaga ugu badnana magaalada ku qaadatay ayaa isleedahay? waxaan ku dhashay Cabdicasiis Kaamba Amxaaro, dadka yaqaana ayaa yaqaano. waxaan ku soo barbaaray oo markii dagaalada laga soo laabtay ilaa xilligan intaan la ekahay u jeedaane waqtigeyga ugu badan waxaan ku soo qaatay Kaaraan, xaafad la yiraahdo Wajeer. asxaabta reer Wajeer way kala garanayaan oo maleena reer Kaaraan. Okay, Mama Shukri Masala, wadanka isleedahay ayaa ugu liita xagga YouTuberka markii la fiiriyo views-koodii iyo subscribe-kooda, wadanka isleedahay ayaa ugu liita? wadanku ugu liito oo youtube-ka isticmaalo waa Soomaalida. Mama Shukri Masala, maxaad ku keentay aad u leedahay Soomaalida ayaa ugu liita? Soomaali laga yaabo in la helo Soomaali 1 billion subscribe haystaan ama 1 million viewers. Soomaalida hal qof kama soo baxayso oo 1 million subscribe haysato kama soo baxayso. ma ka soo baxayso bataatanba. waa laga yaabaa 1 million views inay haystaan, laakiin 1 million oo subscribe ma haystaan Soomaalida. ma garanaya, waa daawane waa iska baxayaan, waa daawane iska baxay. adduunku waa isgarab istaagaan, way is support gareeyaan, isma soo caayaan, isma aflagaadeeyaan. just laakiin Soomaalida ma garanayo. Shukri Masala, su'aasha afraad ku weydiiyo, maxaad dhihi lahayd dadka igu xiran oo aan subscribe-ka ii saareynin? maxaad aad farin u dir lahayd? wal u sheeg. caawiyo, subscribe hala siiyo, like hala siiyo, hala share gareey. anaga waxaan rabnaa adduunka kale inaan la tartanno. ugu dambeyn waxaa la joogaa qaybta ugu dambeysay ee su'aalaha aan ku weydiinay. YouTube-leda oo hadda soo baxay, maxaad dhihi lahayd oo aad fariin mise waana aad ugu tagi lahayd? garab istaago qofka maanta aan rabin, qofka walaalka ay caawi. bari markaad rabto adigana waa lagu caawin. ma fahantiin? waxaan joognaa qaybta ugu dambeysay ee aan su'aalaha ku weydiinay. su'aasha ugu dambeysay hadaan ku weydiiyo, asxaab badan waxaa jirta ay daawadaan oo aan maaragtay subscribe iyo waxba ii saaran. asxaabtaas maxaad waana aad ugu tagi lahayd, maxaadana fari lahayd? haddaan fursad ku siiyo asxaabta aniga igu xiran ama ay daawata, maxaad fari lahayd? waa inaad subscribe siisaan, aad like siisaan, commentina aad u reebtaan, aad hadduu wax wanaagsan soo geliyana aad u share gareysaa. hadduuse wax wanaagsan oo ummadda ku fidnoobaysa uu wadane waa inaad subscribe-kaas le aad ku saacideysaa. Shukri Masala, adiga haddaad aragto qof YouTuber ah oo aad ku aragto YouTube-kaagi, maxaad ku samaysaa? ma intaad fiiristaad iska dhaaftaa subscribe u saartaa? Soomaaliga oo YouTuber magac Soomaali markaan arko aniga wallahi ma dhaafo. like-ta waa siiyaa, subscribe-kan waa siiyaa, waana ka sii socdaa. ma fahantiin? sidaasaan laga rabaa inkana qofkiiba Soomaali waxaan rabnaa adduunka waa adduunka oo dhan markii la dhaho dadka ugu daciifsanaan ku jirnaa. markii la dhaho YouTuber-ka views ma haystaan, subscribe ma haystaan, like ma haystaan, wax ay haystaan ma lahan. maadaama asxaab badan ay ugu xirantay oo ay daawadaan, maxaa wareysi ah ama maxaad fariin ah oo aan kaa gaarsiiya dadkaas oo aad dhihi lahayd afkaaga aad ku dhihi lahayd? bal sheego. idin soo gaaro asxaabta kaleetana gaarsiiya, iyagana say ugu baraarugaan. waxaan rabnaa inaan adduunka la tartanno. adduunka dadka ugu maxaa la dhahaa ugu loser nahna lose waa dadka ugu hooseeyaan nahna oo YouTuber-ka isticmaalo. waa sida xaqiiqda. dadka ugu hooseeyo zero aan nahna zero aan ka nahna. adduunka markii la xisaabay dadka ugu hooseeyo oo zero-da anagu noqonay, Soomaaliya noqonay. waa YouTuber-ka. dadka kale adduunka level fiican ay ka joogaan, laakiin anaga waxaan ku soo baxnay zero.
sababtoo ay tahay maba anaaba isku mashquulsanba maxaaba qof walaalkaayo youtuber aad caawisaayo ama like siisaayo ama subscribe siisaa qofka walaalka hadduu wax ku helayo like-tana si subscribe-kana si beri marka adiga u baahato sida adigana lagu siiyo waxaa jiraan dad badan oo adiga kugu xiran oo ku support gareeyaan oo anakana aan na daawadaan aan subscribe noo saaraynin dadkaasoo kale oo subscribe-ka iga baqiilayaan oo subscribe-ka ii saaraynin maxaad dhihi lahayd oo fariin ah aad u gudbin lahayd ayaga hadda way ku daawanayaan waxaa iska baqiilayna subscribe-ki anaga waxaa iska baqiilayna views-ki anaga waxaa iska baqiilayna like-ti goormeeba adduun aa la tartantaa marka waqtiga adduun la tartamaysid waa goormee haddaba zero gashay berina zero lay joogay le adig beryahan dambe waxaa jiraan youtuber badan oo Soomaali oo YouTube kusoo biirayaan kuwaas oo kale maxaad dhihi lahayd oo aad fariin ugu tagi lahayd hadaa maanta fursad ugu dambeyso aan ku siiyo ka sameysana waxaan leeyahay ha ku fikirina YouTube-ka inaad lacag ka sameysaan ku fikir inaad tartanka ku guuleysataan magaca Soomaaliyeedna aad kor u qaadaan warkayga waa maqlaysiin hurdada ka kaca ugu dambeyn waxaan joognaa qaybta ugu dambeysay ee su'aal wareysiga dadkana daawadeen ani adiga wareysigeeni maxaad dhihi lahayd like si subscribe na si